barnaamijkeeni dhinac dhaqaale ayaa inoo socda ikhyaaray kani waa canabka arkaysaan waa canabka siirka leh kana waa caleentiisii waa hasha ilmaan ee sanad kasta waqtigan oo kala dhasha horta geelu goormu dhalaa meeqa sano iyo ku dhalaa geelu arigu sidoo kale lo-du sidoo kale geedkani sanad kasta marka saacadda la gaadho ayuu dhalaa kabacdina inta kale ma dhalo wuxuu qaataa xikmadda rabbaaniga uu sii qaataa hoostiisa marka geedka bedelkiisa waxaan ka beeraa yaanyo xabxab aladuba khayaar iyo geedo kale oo iyaguna dhala waa guri camal oo doonaya inaan u dhisan gareeyo webi soconaya geed canaba oo sidii webiga loo beeray geed canaba oo sidii togii loo beeray geed canaba oo sidii barkadii loo beeray ama diyaaradii ama tareenkii ikhyaaray guriga markaan iibsaday baan design gareeyey dariiqooyin badan baan tijaabiyey qaar badan waan ku guulaysan waayey qaar waan ku guulaystay ikhyaaray markaan ku guulaystay baan la jeclaaday degaankayga africa la jeclaaday waxaan jeclaystay caruurtayda iyo gurigayga waxaan u sameeyey nimcada inaan guri kasta oo dadka soomaalida degan Ethiopia aan u sameeyo kabacdina nin kasta oo af Soomaali ku hadla ama af Xabashi ku hadla inaan u sameeyo ikhyaaray kabacdina Afrikada u gudbo Afrika maxaa ka dhigay xeradii kaadina barnaamijkaas waxaan isagoo socda ayaa waxaa ku soo biiray bahda powerka wiil aan u haystay inuu barakaysan yahay laakiin aan barakaysnayn mudane cabdi maxamed cumar ama barasaab cabdi maxamed cumar ayaa ku soo biiray waxaan istusay maadaama aan wiilkan ogahay aabbahay ogaa awowgay ogaa hooyaday ogeyd habartay ogeyd dhalashadiisii ehel qaraabo aan nahay walaalo nin kasta oo ehelaad tihiin ka sugin markuu baa kusoo biiro inuu baraka ku wado ayaan sidaas oo dhan u jeclaystay inuu barnaamijkan ila daadihiin qaadan una khiyaaray sidaas uu usoo biiray bahda powerkan calaaqaad la sameeyey aniga oon waxba ka qaranayn dad badan baan arrintii u gudbiyey arrintii markuu ogaaday sida la ii sheegay wuxuu isku dayay inuu dadkaasi ay i waraystaan warka iga guraan isagoo laakiin una mar ay qaabilin haddii laga tegi waayo mar buu i qaabilay 10 daqiiqo isagoo gobolka Tigreeg u socda wuxuuna ii sheegay inaan soo noqonayno 4 sano ka hor waxaan sugayay 1 sano oo bila halkii baan ka soo noqday inta ka dambeysay haddana ikhyaaray waxaan u gudbiyey isagoo barnaamijkan oo 3 project kala ah toga faafaneed iyo toga jarreed iyo hawd oo tog laga dhigayo saddexdan waxay isku bedelayaan barnaamijku wuxuu u bedelayaa dooxooyinka barakaysan ee durdurka ah ikhyaaray biyaha roobka da'a deegaanka ka da'a oo la qabto sida weelka ku jira canabku loo qabto weelkan oo barkad ah weelkan oo diyaarad size-keeda weelkan oo toga jarreed size-kiisa ah oo la qabto dhinac roob oo kasta oo dhulka gelay oo la qabto dhibicda roobka iyo toga gala webiga gala oo kaalamar dusheeda la saarayo ama fiiqa dubureed la saarayo ama gurayska iyo buuraha dhaadheer la saarayo biyihii oo la saarayo buurta korkeeda saad u garataan kaaramardha biyihii toga jarreed gelayay ee socday oo la saarayo buurta barnaamijka saddexdaa ah ayaan u gudbiyey dowladda deegaanka Soomaalida shacabkeeda dowladeeda oo dhan haddana wax soo dhaweyn ah ama wax ictiraafa kama helin ikhyaaray waa 10 sano mise siyaada inta aan barnaamijka u gudbinayo cabdi maxamed cumar laba jeer baan deegaanka degay mid kasta aan soo joogay sano bil iyo baan dhiman waan ka soo quustay hadda waxaynu ku gudbaynaa cashirka hawada ayaynu ku gudbinaa dhibac dhaqaale waxaan doonayaa dowladda Soomaalida Ethiopia iyo shacabkeeda iyo odayaasheeda iyo culimadeeda dhammaan jaamacadda Jigjiga
xafiiska maxaan ku dhahaa cilmi baarista in lagu daro caqli baaris iyo cilmi baarista ilaahay giftigiisa uu bixiyo in lagu daro waxaan doonayaa in laga cabiro toga jarneed toga gelaya jigjiga ee waraarka ah toga waraarka hoose iyo buurta kaaraamardha inta u dhaxaysa intay kala way kala sareeyaan dooxada iyo guriisku intay kala sareeyaan jarar fiiqa dubureed intuu ka sareeyo toga in la cabiro bilow ilaa dhammaad sidoo kale toga faafan isagana in la cabiro buuraha ka sareeya iyo waraarka iyo dooxada waa saddexley hawdka ama hundaha nabis u yaqaana iyadana cabirkeedu ka duwan yahay oo male buuro iyo male maxaan ku dhahaa laago waa siman yahay laakiin isaga cabirkiisu waa si kale marka hore waxaa loo design garanayaa tog ahaan haddana waxaa loo beerayaa dooxooyinka ama dararka barakaysan ikhyaari waxaan doonaynaa roobka degaankaas abaartu ay sanad kasta ama dhowrkii sanad mar ay soo noqoto in dib dambe aan abaar loo arag dhisaynkaas saynu u gudbinaa ma heli karaa ilaa haddaan iska dadalmo uun qiimi ma samaynayo ma heli karaa dad odayaal ah oo degaanka u dhashay aqoon-yahan degaanka u dhashay oo gudaha jooga iyo kuwo banaanka jooga iyo jaamacadda cagaaran ama kuliyadda dhaandabagaale farsamadeeda inaan isku xiro oo barnaamijku saa u socdo ikhyaari ayaan u baahanahay idinkoo raalliga abaartan degaanka ka taagan barnaamijkani waa ka dabar goynayo abaar dambe aan la arkaynin laakiin marka u horeysta niyeysta curyaanka cagoolaha agoonka rajayga iyo maskiin kasta inuu barnaamijkan yeesho ikhyaari ninka u horeeya maxaan ku dhahaa fundraisingkiisa ka qaadanaya contribution ka qaadanaya maskaxdana soo gudbinaya xigmad iyo caqli iyo lacagna macal gurigiisa macal beerihiisa ugu tabarucaya waa aniga yaa igu biiraa waxaan jecelnahay dowladdu inay barnaamijkan ka fudayso hawada hadday diiday in dalka gudihiisa ay ka fudayso dowladdu way ku faraxsannahay barnaamijka qaybtay qaadatay qaybta kale ee ka dhiman xeesheeda sawiro dibi iyo dhaan dabagaale ama dabagaale beer qodaya oo intuu ka bilaabo toga intuu dooxada ka bilaabo guriiska fuuli oo sii fuuli oo soo daadegi sawiro qof sawira u baahannahay waxaan u baahannahay libaax iyo lo beer lagu qodayo okay beer lagu qodayo sawiro maroodi iyo dabangaale beer lagu qodayo sawiro dabangaale dameer beer lagu qodayo sawiro dabangaale iyo orgi ama sumal oo beer lagu qodayo xigmadan waxaan u baahannahay injineernimada ku jirta inay soo saaraan qolyaha injineerada bartay ama civil engineering ama electrical engineering inay soo saaraan faraqa u dhexeeya isaaska u dhexeeya marka beerta lagu qodayo miisaanka xagee loo badin saaskee loo badin engineering design waxaan u baahannahay in hooyada Soomaaliyeed ee hararka taqaana kabada taqaana aqalka taqaana in la weydiiyo xigmadda ku jirta meesha waxaan u baahannahay engineer kasta oo deegaanka u dhashay inuu yimaado maxaan ku dhahaa nin kasta oo wax soo bartay inuu yimaado qayb baan ka weydiinaynaa okay geed qoyan iyo geed ingegan biyaha in laga cabo kee bini'aadamka u fiican kee beerta u fiican kee xayawaanka u fiican kee dhirta caloosheeda u fiican kee ciidda caloosheeda u fiican waxaan u baahannahay ikhyaarta wax soo baratay iyo kuwa ilaahay siiyo giftiga inay isku yimaadaan oo ay naga guraan xigmadan ilaahay noo dhiibay ama kuwa badan oo aamusan ilaahay u dhiibay la ogolaado xigmadda in la soo saaro in xoogga la daayo dadka lagu hayo oo xigmadda la dagaalanka caqliga ee deegaanka ka jira in la joojiyo oo in yar loo ogolaado in yar inaan maskaxda isticmaalno aniga jaamacadda cagaaran dadka ku xiran iyo kuwa kale inaan ogeyn inta waxaan rabnaa inaan isku nimaadno oon abaartan tii u dambaysay biidnillaahi kariim aan ka dhigno ikhyaaray maxaad ka qabtaa